العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعده مدن قدومية قرصو ريال وحن رباه لما يتبنكي أفرتن يلا بدقيقة وحن رباه كود أفرت 6 دقيقة قبل أبنه أوكي وحن رباه مدن قدومية إن جبجبة إذا دور نقطة هاست أوها الريقة كبعدنا أنسوج يعصي ذي نقطوين كان هاست أوها الريقة وحيسوج ران وحيابه حير لاليه أوجد dooday marxaladii gabagabada iyo waxyaabo xeeralaaliyuhu uu ku guuleysan inuu cadeeyo marxaladii 114 iyo marxaladii gabagabada labadaba mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan ka bilaabo dood xeeralaalinta ee ku aadaneeday inuu ka garnaqsaday arintii la xiriirtay shirkadda SKA uu yiri qareenadu waxaynan ba fahmin awood xeer ilaalinta ee ku xusan qodobka 7aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliya mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh xafiiska xeer ilaaliyaha waa sax in qodobka 7aad uu awood u siinayo inuu go'aan ka gaaro ma yaa dambiila iyo eedeynayo nase eedeyneen maxuu dalbana laakiin marka arintaasi uu go'aan ka gaarayo waxa loo baahnay in uu ka jawaabo dhowr su'aalood waxaan maxkamadda u cadeynay email oo saabir uu u diray shirkadda 4 Abriil 6 Abriil asiga oo ka shakiyay warbirmadiyo khilaafsan dhisaynkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay tiri hal la qaato xilligaasi oo email u diray oo uu ku yiri rasiidiyada keena 8 baasaboor iyo xataa sanadka 2020ka wixii aad bixinayseen keena uu yiri emailkaasi oo ay ka muuqatay niyad wanaag iyo shaqo wanaag iyo dadaal dheeri oo eedeysanuhu uu sameeyay ay ka muuqatay waxaan maxkamadda la wadaagnay in aynan jawaab fiican ka bixin waxa maxkamadda la wadaagay in habeenkii eedeysanuhu wuxuu la wadaaga saabir in markii la soo xiray su'aasha koowaad la weydiiyay ay aheeday SKA inay aheeday oo hanti dhowruhu ay weydiiyay arrimahaasna uu dhibaato badan kala kulmay emailada iyo jawaabina maxkamadda waa cadeynay shirkadaasi in uunan maxkamadda u soo gudbin iyo dukumiintiyadeedii iyo emailadadeedii saabirna uu ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta su'aalaha marka maxkamadda سؤالها مركز حير العالم توجهها يا واحد أيهين لماذا الإيميل كاس أقول تحقلين ويس رئيسناها لماذا كان بني جاس يدوكومنتيه دي أتكا قاعد سابر أعذر محكمة أقول سوق بين لماذا أرمها سيوردن وإغنور جريسي لماذا أوشي جويسي لماذا مرحلة دي بقول طمان يتضبط واحد محكمة كانن شركة داسي إني rasiidiyadii oo wog barmadkii waa hore ay qaateen ay dib ka bixisay 16 Abriil ay bixisay ay maxkamadda keeneen soo arintaas rumayn mayso shakiga saabir oo ka shakiyo soo rumayn mayso oo de 16 Abriil in rasiidkii dib laga bixiyo soo wuxuu ka shakiyo rumayn mayso asiga laftirkiisa oo dhahaaya adeega dawladda deyn lagu bixiyaa oo gadaal laga bixiyaa diidanay muxuu shirkadaasi ugu qabsan waayay maxaa ku qasbay marxaladii 117 inuu u dalbado kaliya inuu shirkadaasi difaaca kaliya inuu arintaas u dalbado maxaa ku qasbay su'aalahaasi oo dhan waa wajahayaan waa calaamatu su'aal shaqada xeer ilaalinta dul saaran waay marka inuu yiraahdo qareenadu ma fahmin arin la yaab la waaya asiga ayaan fahmin qodobka 7aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliya mudane gudoomiye arinta labaad ee aan rabo hoosta inaan ka hareeqo waxa ay tahay maadaama waqtigu cariiri uu yahay waxa uu ku dooday in saabir uu awood buuxda oo siiyay agaasimihii guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda mudane gudoomiye waxaan rabaa ma jirto awood gaar ah oo saabir uu heestay laakiin waxaan rabaa in maxkamadda u cadeeyo saabir waa ninka kaliya ee heestay immigration study shahaado ku heestay oo meeshaas joogay sidaas darteed waxyaabaha qaarkood oo u baahan cilmiga dheeriga waa laga yaabaa in la yiraahdo gaar u qabo soo baar in la yiraahdo sidaba loo dhahay hadda
kambaniyadaani shaki badanaa ka jiro sargaal asiga ka horreeyey ayaa dukumiintiyadaasi qabtay soo baar sidaba loo yidhi mudana guddoomiye arrimaha noocaasna ma ahan arrimo la xiriiro faldembiyeed iyo maxaan idhaahdaa arrimahaasi oo dhan la xiriira ma ahan mudana guddoomiye waxaan rabaa mar labaad inaan hoosta ka hariiqo waxa uu ku dooday xafiiska xeer ilaalinta marxaladdii 119 in verificationka lagu qabto lacag lagu jaro arrintaasi waxay muujinaysaa annaga ayaa ku doodnay in dukumiintiyada la xaqiijinayo ama verificationka lagu samaynayo oonan ku jirin rasiidka lacag qabashada ee xisaabiyaha guud oonan ku jirin oo rasiidka gadaal laga bixiyo sidaas darteed waxaan dhihi karnaa dacwad oogaha metelaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uunan fahmin shaqadii immigrationka sida ay u socotay verificationka maxaa lagu xaqiijiyaa approvalka maxaa lagu xaqiijiyaa shaqada saabir maxay tahay shaqada sargaalka approvalka sameynaya maxay tahay shaqada sargaalka visa state takinka sameynaya maxay tahay waxaas oo dhan inuunan fahmin ayay daliil u tahay maadaama ilaa hadda marxaladii 119 oo ku dhagan yahay waxyaabaha verificationka lagu sameeyo waxa kamid ah rasiidkii lacag qabashadii xisaabiyaha guud maadaama uu ku dhagan yahay arrintaasi ayaana sababtay in saabir la eedeeyo limaada qofka in la xukmiyo waxaan waa faldembiyeed ee hal la eedeeyo iyo faldembiyeed ma ahanayan la eedeynin waxa ka horeeya qofku inay sawirato sida shaqada ay u dhacaysa marka xafiiska xeer ilaaliyaha gaar ahaan dacwad oogaha metelaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud qaranka waxa ka khaldanmay sawirashada sida shaqada ay u dhacaysay khaladaadkaasi ayaana gaarsiiyay inuu eedeeyo eedeysanayaasha mudane guddoomiye waxaan rabaa inaan hoosta ka hareego inta aanan u gudbin codsiyadayda waxa uu dhahay dacwadooguhu ma caddaynin saabir magacyadii ama maxaan idhaahdaa in shirkadda uu shareholder ka yahay looma baahna shirkadda inuu shareholder ka yahay laakiin waxaan caddaynay mudane guddoomiye lacagaha koontadiisa maray inay shirkadaasi iska laheeday koontooyinka loo diray oo dhowr koonto ahna ay ahaayeen shirkadaasi kambaniyadii macaamiilkeeda ahaayeen la shaqaysanaya yan maxkamadda u caddaynay arrintaasi way nagu filan tahay waxaan maxkamadda u keennay rasiidiyadii arrintaasi caddaynaya qaansheegashayaashii waxaas mid u caddaynay xafiiska xeer ilaalinta waa awoodi waaya hal rasiid oo kamid ah rasiidyadaas oo qaansheegad leh oo warqado lacag qabasho leh oo warqado kalantood leh hal kelimi inuu ka yiraahdo waa caddayn waayo laakiin warkiisa wuxuu ku soo koobay ma caddaynin in shareholder uu ka yahay yaa khasab ka dhigay qodobkee khasab ka dhigay haddiiba shirkad aad la tacaamulaysid waa inaad shareholder ka noqotaa qodobkee khasab ka dhigaayo arrinta doodaasi waa dood micno aan lahayn oo qiimo aanan lahaynin waxa ka yiraahdo warqadaha aan u keenay maxkamadda oo asigana la wadaago waxa ka yiraahdo haddownan ka dhihi karinna ha ka aamusiyo mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh marxaladeeni 116 intaas markaan ka gudbo mulaaxadaadkaas marxaladii 116 waxaan maxkamadda u caddaynay in rasiidka lacag qabashada uunan ka mid ahayn warqadaha lagu sameeyo verificationka oo sargaalka verificationka sameynaayo aynan warqadaasi aynan ugu jirin oo emailku markuu dhaco ka bacdi ay qofku wasaaradda maaliyadda aadayso haddii wasaaradda maaliyadda ay ka timaado kadibna aan sargaalkaas la soo maraynin ee sargaal kaleentood rasiidkaasi oo uploading ku sameynaayo oo attach garaynayo ka bacdina approval lagu sameynaayo yan caddaynay arrintaasi waxaa nagu waafaqay sargaalkii maxkamaddu ay ku wareysatay marxaladii 118 arrintaasi waxa ay meesha ka saartay inay eedda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee ah in rasiid in saabir uu qayb ka yahay lunsiga lacagaha ku qoran rasiidkaas maxaa yeelay sargaalka immigrationka ka socday iyo caddaymaha aan keena dhammaantoodba waxay sheegayaan
in macaamiilka wato rasiidkaasi iyo saabir aynan is arkin in rasiidka uunan soo marin saabir marka koowaadna wuxuu verificationka ku samaynayo uunan ku jirin dabadeedna aan la soo marsiinaynin arrintaasi haddii wax lagu qancayo xafiiska xeer ilaalintu inuu ku qancay ahayd laakiin ma aqaan wax qanci kara xafiiska xeer ilaalinta maxkamadanse waxaan ka rajaynaynaa inay qiimayso si waafaqsan qodobka 200 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya mudane gudoomiye garsoorayaal arrintaasi aan qiimaynay waxay meesha ka saaraysaa in saabir lagu eedeeyo qodobka 366 iyo qodobka 360 iyo qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliya maxaa yeelay haddii rasiidkii uunan arkin uunan soo marin macaamiilkana aynan is arkin ma jirto wadda lagula xiriirin kara saabir arrintaas lagula xiriirin kara ma jirto sidaan u sawiranaynaa rasiidka aan isku wada waafaqsannahay annaga iyo xeer ilaalinta in wasaaradda maaliyadda loo diray shaqada immigrationka ay u dirtay ee macaamiilkii uu la yimiday oo saabirna aan la soo marsiin sidaan u sawiran karnaa inuu saabir been abuure saabir miyaa macaamiilkii ah saabir miyaa kii laga soo qaadaya ah saabir miyaa kii loo keenaya ah sidaan ku sawiran karnaa lacagta ku qoran inuu asugu ku qoree macaamiilkii uu ka qaatay ee ay joobkiisa gashay maadaama uunan macaamiilkii la tacaamulaynin sidaan ku sawiran karnaa tiin baraha rasiidkaasi saaran in saabir saaray sidee lagu cadayn karaa maadaama saabir uunan batiin barana isticmaalin rasiidkaasna arkin cidda wadatana uunan arkin si arrintaas lagu cadayn karaa su'aalahaas lagama jawaabin cid ka jawaabi kartana ilaa hadda la jooga ma jirto laakiin kaliya waa lunsata intaas ma dhaafsana dacwadda xafiiska xeer ilaalintu intaasi ma dhaafsano mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda u cadaynay marxaladii 116 intii aan ku jirnay gaar ahaan abukaata zakariya uu cadeeyay in hay'adda FRC warbixinteeda ay ku sheegtay kaliya in baaris dheeraada lagu sameeyo akoonnada saabir micnaheedu ay tahay inaynan wax ay ku hubto oo lacag dhaqisa aynan jirin oo ay leedahay kaliya hal la baaro koontooyinka lacagta loo diray mudane gudoomiye xafiiska xeer ilaalinta ma jirto baaris dheeraada oo uu sameeyay hay'adina waxay soo dhahdaa baaris dheeraada hal la sameeyo sidaas darteed inuu eed ku saleeyo warbixinta FRC-ga oo ayaduba dhahday wax ma hubnee waan shakisanahay si dheeraada loo baara dhahda inuu eediisa ku saleeyo aadan uga xunahay iyadoo xeerku waajib uga dhigayo in si aan shaki la'aan ahayn loo cadeeyo faldambiyeedka sida uu jidaynayo qodobka 110 iyo qodobka 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya mudane gudoomiye in garsoorayaal marka laga soo tago in xafiiska xeer ilaalintu uunan baaristi loo baahnay samaynin annaga ayaa maxkamadda waxaan u cadaynay xiriirka ka dhaxeeya shirkadaha ay dhahday FRC si gaar ah loo baaro sida shirkadda Docol iyo maxaan iraahdaa Selbush Investment iyo kambaniyada kalaantooda lacagta loo diray xiriirka ka dhaxeeya annaga cadaynay cidda iskale wuxuu shirkadaas ka yahay shirkadiya soo cadaysay mudane gudoomiye garsoore waxaa kaloo aan cadaynay sargaalkii shaqada uu qabanayay asiga kadib qabanaya isla kambaniyadii iyo maxaan iraahdaa akoonnada lacagta saabir oo ku diraya inay ku dirayaan banki statement ay ku cadahay yaan maxkamadda u soo gudbinay mudane gudoomiye marxaladii 116 waxaan cadaynay in aynan jirin wax iska hor imaada oo ka dhaxeeyo adeega immigrationka loo qabanayo iyo shirkadda Jaziila aynan jirin maxaa yeelay ma jirto hal arrin oo conflict of interest ah oo xafiiska xeer ilaalintu uu soo cadeeyay oo arrintaasi muujinayso taa beddelkeeda annaga ayaa cadaynay inaynan istaabanaynin oo aynan arrintaasi aynan isdhibaynin sida xafiiska xeer ilaalintuna doodaas iyo cadaymahaasi marxaladii 116 aan ku soo gudbinay wax jawaaba oo uu keenyo ma jiraan sidaas darteed waxaan munaasib ahayn oo sharci darro iyo ka fiirsasho la'aan ah
in sargaalka saabir lagu eedeeyo qodobka 251 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya mudane gudoomiye annagoo arrintaasi weli daba socono waxaan maxkamadda u cadeynay oo maxkamadda aan hor keenay tendency-ga eedeysanaha kaas oo meesha ka saartay shakiga ah ma dhici kartaa maadaama shaqooyin kalantood uu haaya in shaqadii dawladda uu dayaca ma dhici kartaa mudane gudoomiye ayadana waxa waaye jawaabtaasi aan bixinay waxdooda oo ka timid dhanka xafiiska xeer ilaalinta ma jirto mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda hal daqiiqo ku harsan okay mudane gudoomiye halkaas daqiiqo waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto marxaladii 116 inay ahaadan u maleynayaan maxkamaddu waxay weydiisay su'aal ah ma jirtaa saabir inuu saxiixay warqadda approvalka arrintaasi waxaan rabaa warkii ugu dambeeyo aan ku hadlay inay noqoto mudane gudoomiye waxa waaye marka koobaad hortu shaqada immigrationka waa systematic approvalka mar walba waxa iskale sargaalka approvalka sameynaya ayaa iskale laakiin waxa jiro mararka qaarkood in la yiraahdo hebelow saxiix inta sargaalka baxyo gaar ahaan ninka odaga ee khamiista iyo isniinta iyo waa soomi jiriya marka wuxuu dhihi jiray warwan daahsanahay xilliyada dambo shaqooyinka la qabanayo saxiix shaqada immigrationka mararka qaarkood saacado dheeriyaha la shaqeynayo sidaas darteed inuu saxiixo ayaa laga yaabaa saabir kaliya ma ahan gobolada oo dhan approvalka waxa sameeya agaasimaha laakiin sargaal kalantooda la yiraahdo saxiix maadaama dukumentiga la saxiixa muqdisho uunan imaanaynin arrintaas marka wax maalin iyo laba maalin loo idmaday kaligiisna aynan ahayn cidii joogto loo idmanayo wax saameyn ah oo ay ku yeelan karto ma jirto waxaase intaas ka sii dheeriya hortu yaa dhahay approvalka laftirkiisa cidii sameysay lacagay lunsatay yaa dhahay approvalka sameyntiisa laftirkeera yaana lacag lunsu ahayn mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan rabnaa marxaladii 116 waxaan si cad ugu sheegnay in xiriir uunan ka dhaxaynin qodobada lagu eedeeyo saabir iyo shaqadiisa iyo factiska jiro xafiiska xeer ilaalintuna wax jawaab celina arrintaas oo ka keena ma jirto sidaas darteed waxaan maxkamadda si xushmad ku dheehan tahay aan u weydiisanaynaa inay xukmiso kuna dhawaaqdo in eedeysana saabir cabdi nuur uu beri yahay maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha in eedeysana saabir cabdi nuur uu beri yahay si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ku fashilmay kuna guul dareestay in uu cadeeyo faldambiyeedka oo ku soo eedeeyo number 2 waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in eedeysanaha ay xurriyadiisi u soo celiso ayna amarto in xabsiga laga sii daayo maadaama lagu waayo dambigii lagu soo eedeeyo maxkamaddu waa mahadsan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh